waxaana nasiib darro ah in inta suldaanka Hargeysa laga qaado oo ah halka ehelkiisu degan yahay halkii lagu soo booqan lahaa halkii lagaga warhayn lahaa in ilaa Mandheera la geeyo wax yaab leh markaa in dadka la xirayo faraha badan ee aan sharciga dalka loo eegay ee aan sharci ku xidhnayn ee amar qof ku xidhmaya in arintaasi cawaaqib xumadeeda laga digtoonaado. bismillaahir rahmaanir rahiim. assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. waxaan aad u salaamayaa dhamaan bulshada reer Somaliland waan ku salaamayaa salaanta islaamka. caawa waxaan halkan ugu tala galay inaan fariin muhiim ah aan ka diro fariintaas oo la taxalluqda xarigii iyo xabsigii lagu sameeyay bila sharciga ahaa ee aan sifada sharciga loo marin ee qawaaniinta dalka iyo dastuurka Soomaaliland midnaba aan la ixtiraamin ee lagu xiray Suldaan Axmed Qabiile oo ku magac dheer Qabiile oo ah suldaan weyn oo ka soo jeeda gobolada Togdheer Saaxil iyo Maroodijeex isla markaana aan markii la qabanayay aan wax fal dambiyeeda si xeerarka dalku ay dhugayaan aan gacanta kula jirin ama waxa lagu tilmaamo in falangaranta delecto oo ah in qofka la qaban karo hadduu fal dambiyeed gacanta ku jiro. suldaanku wuxuu ka hadlay arrimo aan amniga dalka taabanayn arrimo deegaankiisa khuseeya arrimo aan siyaasad ku shuqul lahayn isagoo u hadlayay dadkii uu matalayay. waxaan u soo jeedinayaa xukuumadda iyo cidda gacanta ku haysa in suldaanka xorriyadiisii uu xaq u lahaa in si dhakhsala loogu soo celiyo in dadka la xirayo faraha badan ee aan sharciga dalka loo eegay ee aan sharci ku xidhnayn ee amar qof ku xidhmaya in arintaasi cawaaqib xumadeeda laga digtoonaado oo aanay noqon arin soo noqnoqota oo xorriyatu qowlka iyo xorriyadaha asaasiga ah ee dastuurku dadka reer Somaliland siiyay aan lagu tuman oo la ixtiraamo. dawladnimadu waxay ku fadhidaa qawaaniinta dalka waxay ku fadhidaa dastuurka Somaliland waxa xukunku lagu kala wareegaa habka uu dhigay dastuurka. madaxweynaha markaa fadhiya wuxuu ku yimaada sharci waxaanu ku baxaa sharci waa inaanu sharcigana la ixtiraamaa oo la ilaaliyaa waa aad iyo aad runtii muhiim ah. waxaan ugu baaqayaa in suldaanka xorriyadiisa loo soo celiyo si bila shuruuda in la ixtiraamo qawaaniinta dalka u taala iyo in Somaliland aanay noqon meel Somaliland waxaan ognahay oo waa meel ku caana cabirka fakirka waa meel ku caana xorriyatul qowlka waa meel ku caana ilaalinta xuquuqda insaanka waa meel ku caana ixtiraamka dastuurka inaan intaa midnaba lagu tuman. waxa aynu ognahay in dalkeenu uu yahay dal curdina oo maaragtay arrimo fara badan la dala dhacaya marka waxaan ku soo gabagabeynayaa suldaanka xorriyadiisa u soo celiya dastuurkana hal ixtiraamo. waxaana nasiib darro ah in inta suldaanka Hargeysa laga qaado oo ah halka ehelkiisu degan yahay halkii lagu soo booqan lahaa halkii lagaga warhayn lahaa in ilaa Mandheera la geeyo wax yaab leh markaa dambiga inta Hargeysa laga qaaday Mandheera loo geeyay ee suldaanku ku xiran yahay noocu yahay ayaa yaab leh oo ilaa imkana aan wax dambiye lagu soo eedeyn maxkamad dambi ku qaaday oo ku xukuntayna aanay jirin. marka waxaan ugu baaqaynaa in sida ugu dhaqsaha badan insha Allah billahi kariim suldaanka loo soo daayo xorriyadiisa loo soo celiyo. wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.